meel baad joogtaan meel baad dunida ka joogtaan waan idin soo dhaweynayaa maanta waxaan rabay maadaama weekend ay tahay sabdina la joogo dad badan baa iga soo codsaday inaan wax badan idinka tusiyo cryptocurrencieska marka waxaan rabay insha Allah maanta waxaan rabaa saddex website inaan idin tusiyo website-ka kuwaad oo ah coin tracker ay ku qoran tahay .io sidoo kale waxaan rabaa inaan idin tusiyo coindesk website-ka la dhaho asagana aad ila fiirisaan waa mid kaleeto website-ka saddexaad aan rabay inaan isla fiirino waxaa waaye crypto watch midka ku qoran tahay .ch ku qoran marwalbo domainka iska fiiriya qaybta chartigan ku jiro hatirtaan soo marka su'aalo badan la isweydiiyey dad aad u fara badan ay weydiiyeen waxaa kamid ah horta lacagaha intee kala socon karnaa lacagahan cryptocurrency-ga meeshaan kala socon karno maalin walbo waxaa kala socon kartaa saddexdan website hadday noqoto qaybta chartiga ahayd waa kala socon kartaa meesha u marayo akoona free xataa waa ka furan kartaa qofkii rabo inuu plus dhaho oo iska register gareeyo qofkii rabo inuu meelaha ku ciyaaro account real hadda u baahan tahay meelo laga furtaa jiro anaa idinka caawin doona insha Allah waxyaabaha muhiimka dadku ah waxaa waaye cryptowatch.com hadda ku dhufano horta lacagihii guud inaa aragtid healthigooda maantay ama waqti xaadirkaasi caafimaadka ay qabaan su'aalo kale hadda waxa ula jeedaa suuqa maanta waxaa waaye hoos ayuu ku jiraa because maanta ma dhihi kari waqti xaadirkan aan idinla hadlayo already waad u jeedaa inta greenka ah iyo inta redka badan oo saddexdan Cardano iyo maxaan dhahaa iyo XRP iyo maxaan dhahaa Polkadot ayaa waxay yihiin daadka ayaa waxay yihiin oo kaliya green soo marka waqti xaadirkan aan idinla hadlayo wili suuqa oo furan yahay muhiimadda horta waa taas inaad aragtid lacagihii sidoo kale markaad isticmaalayso contractorka waa free asaga qaybta waxaa ku dhufan karta waxyaabo fara badan ayay hayaan website walbana markaad eegaysid waad eegi kartaa waxay qabtaan information badan ka helaysaa laakiin anaga waxaan rabnaa hadda qaybta resource-ka inaan tagno laba siyaabo ku furan exchange-yada inaad fiirisid ama price-ka crypto ay marayso halkaas kala socon kartaa waa free information kana public waaye marka waqti xaadirkan crypto 47 ayay maraysaa sababta hoos u tagtana waxaa waaye tweetkii uu sameeyay Elon ayaa kamid ahay Ethereum na u jeeda hadda xoogo hoos ayuu soo dhacday waa waqti wanaagsan Binance Coin sidoo kale waa 500 ayuu marayaa waa laga faa'iideysan karaa almost u jeedaan inay xoogo down yihiin Cardano sidoo kale price wanaagsan waa because of waad u jeedaan 18.9 inay percentage kor tahay soo marka waa lacag laga faa'iideysan karo Dogecoin oo kale hadda 51 ayuu marayaa soo marka waa meelaha kala socon kartay price-ka aad muhiim u tahay special 24 saac socdood isbedelka uu sameeyay sidoo kale maxaan dhahaa market cap-ka qiimaha guud ee lacagtaas intay tahay waad u jeedaan market cap-ka saacadii la soo dhaafay volume-ka intuu marayo 24 saacadood iyo supply-ga iyo price chart-ka oo kale aad muhiim u tahay waxaan ka codsanayaa inaad intaasi aad sidii maxaan dhahaa muhiim aad u xifdisaan sidoo kale inaad xifdisaan tikerada lacagta ay ku qoran tahay lacag walba oo tiker ay leedahay inaad xifdisaan soo marka halkaas ayaa kala socon kartaan hadday noqoto coin tracker-ka ama exchange-yada haddaad rabtid inaad kala ogaatid sidoo kalena halkaas ayaa ka ogaan kartaa dhammaan exchange-yada hadday noqoto all of them dhammaantooda Binance-ga iyo Binance Chain hadday noqoto Binance US hadday noqoto dhammaantood waa wada taqaanaan Coinbase Brogi all of them waa wada naqaanaa Robinhood sidoo kale dhammaantooda exchange crypto.com sidoo kale crypto.com all of them waa exchange aan naqaano muqaalo badan waa ka sameyn doonaa Kraken oo kale hadeertaan Soomaali dadka jooga way aqbalaan haddii aad Soomaali joogtid brokerkaas waa furan kartaa casharana anaa ka sameyn doona insha Allah sida loo isticmaalo waxyaabahaas oo dhan cash app oo ujeeda Robinhood way fara badan yihiin soo marka website-kaasi halkaas ay kala socon doontaa gar startna waa dhihi kartaa si free ah oo iska diiwaan gelin kartaa iyada adigoo Gmail-kaada isticmaalayo ama isticmaalayo maxaan dhahaa labaduba ay ku banaantay Gmail-kaada adigoo isticmaalayo ama account-kaada Coinbase adigoo isticmaalayo labaduba waa sameyn kartaa ama waxaad dhihi kartaa sign up with email-kaada adigoo gelinayo si lacagahaasi aad halkaas kala socoto waana free mana ahan account exchange ah uma isticmaali doonto insha Allah Coindesk waxyaabaha kale aan ku jeclaado waxaa kamid ah lacagihii inaad ka arkay sidoo kale newsyadii kale news qofkii u baahdo kale newskii markaas ugu dambeeyay inkastoo quality ay lahayn ayadana waa kala socon kartaa research badan ay jiro muuqaalaha ayaan xataa qayb muuqaalo qofkii rabo inuu daawado kale muuqaalada halkaas oo kala socon karaa qofkii u baahdo kale muuqaalada qofkii u baahan oo kale oo ujeedaan latest muuqaalo ay soo geliyeen qofkii u baahan oo kale hadda waxay ka hadlayaan Elon Musk asagoo caawin doono Dogecoin inuu improvement ku sameeyo network ay ku shaqeeyaan soo marka asagana qofkii u baahan wuu ka daawan karaa inkastoo quality aysan lahayn lacagahan sidoo kale XRP oo kale hadda daaratid waa ku dhufsan kartaa qiimaha uu marayo waxyaabaha aan ku jeclaaday waxaa kamid ah oo kale Coindesk oo kale information waxay ku siinayaan oo public ah oo aad muhiim ah sidoo kale price-ka halka uu marayo waqti xaadirkani
24 saacadood la soo dhaaf percentage ka marayso market cap inta uu yahay XRB aan ka hadlaya volume-ka la soo dhaaf 24 saacadood jaartiga waxaad eegi kartaa badanaa dadka ku jiro stock market ardaydeeda stock market ku jiro iyo ardayda futures ku jiro jaartiga waa muhiim inoo tahay one day oo kale haddii la soo dhaafo fiiro ujeedaan price halkuu maraayay wuxuu marayaa 133 ayuu ahaa one day haddana 145 so marka ilaa iyo wuxuu tagay maantadani one day gudaheeda 154 ayuu tagay waa qiimo wanaagsan sidoo kale waxyaabaha ka helaysaan oo kale waxaa ka mid ah 24 hours intuu tagay 24 hours intuu tagay meesha ugu badneed uu tagay sidoo kale net change-gana halkuu maraayo opening-kana inta lagu furay 24 saacadood la soo dhaafay all time intuu gaaro highs ilaa 3 door ayuu tagay intii abad ugu dheereed total supply-giisana waxaad u jeedaa 99.99 billion waaye return uu soo sameeyay 24 saacadood waa intaani sanadkii la soo dhaafay maanta maalinteeda kalena return-ka uu sameeyay waa 500 ilaa iyo maxaan dhahaa 54 so marka waa information muhiim ah waxaan ka codsan lahaa inaad maxaan dhahdaa nala socotaan so qofkii su'aal qabo oo si gaar ah waxaan ka codsanayaa inaad tagtaan maxaan dhahaa Somali Innovation YouTube-keena oo subscribe saartaan 100% information badan aad ka helaysaan qofkii su'aal kala qaban anoo ila soo xiriiri karaa Instagram-kii waa kana mar walbana halkan aan idiin soo geliyaa Instagram-kayga Cabdalawi ku qoran waa ila soo xiriiri kartaan qofkii su'aal qabo ama qofkii rabo in la caawiyo inuu account furtay waxyaabahaasi waa idin caawin doonaa insha Allah exchange far badan ayaa gacanta ku haya waan idinka caawin doonaa inaad account ka furataan kuwa kala duwan Binance kaliya sidoo kale waxaad ka helaysaan volatility-geeda aad bay muhiim u tahay transaction-kana sidoo kale marka waxyaabo XRB-ga waxay tahay sidoo kale information gaaban aad ka helaysaan soo marka ayadana waa idin kula talin lahay 100% inaad jeegreysaan Coindesk information aad muhiim ah ayaad ka helaysaan sidoo kale waxaan rabaa inaan siiyo cryptowatch.ch waxyaabaha ku jeclaado kale waxaa kamid ah inaad suuqi guud inaad concept guud aad ka helayso kuweema maanta green ah kuweeba red ah conceptgaas guud inaad ka hesho lacagaha kala duwan sidoo kale exchange-yada in halkan ku tusiyo kale assets-ka xatir hadda ku dhufatid inaad arkayso sidoo kale ayko dhan dhamaatooda mujeedo in halkan ay kugu soo baxaan qiimo information aad muhiim ah haday noqoto bidkii haday noqoto askigii dadku wax isku weydiinayo ratio-hona sidoo kale aad muhiim u tahay inaad ogaataan waxani iyo sidoo kale maxaan dhahaa janjiga haday noqoto 1M iyo 6M so labaduna aad muhiim u tahay inaad wada ogaataan lacagaha sidoo kale dhamaantooda halkan ayay ku wada jiraan aad kala socon kartaan waxyaabo kale ku jeclaado waxa kamid ah exchange-yada dhan aykan waad kala socon kartaa dhamaantooda number 1 waxa waa Binance waqtiga la aasaasay Binance waad u jeedaan waqtiga la aasaasay information aad ka heli kartaan location-ka ku taalo live markets-ka liquidity-goodana sidoo kalena aad muhiim u tahay value-hi 24 saac lagu sameeyay Binance waa kana so marka FTX haday noqoto dhamaantooda Kraken haday aan ka hadlay oo kaalinta afraad ku jiro United States laga leeyahay 300 iyo live market-kiisa market cap-kiisa waxa waa 2.8 billion so marka Coinbase Pro ku jiro wadanka laga leeyahay waqtiga la aasaasay marka waxa soo dhan baad ka arkaysaan one information 100% aad muhiim ah saad uu sheegay 10 badan ka sameeyay cryptocurrency qofkii raba xatir inuu barto 10 jiro aan bixiyo waa ka soo qayb gali kartaan Instagram-kiina oo ay la soo xiriir kartaan soo marka waxaan ka codsanayaa insha Allah inaad xatir aad eegtaan exchange-ga isticmaalaysaan wadanka laga leeyahay waqtiga la aasaasay market-ka laga helayo value-giisa iyo market cap-kiisa soo marka aad muhiim u tahay inaad waxaas oo dhan la socotaan maxaan dhahaa market-yada xatir waad eegi kartaan oo iska basic ah isla ayki way price-koodii wixii laga helayay coloration-kana waad fiirin kartaan waxyaabo iska basic ah qofkii u baahan waay qofkii rabo I know dadka qaar inay basic yihiin aysan ahayn advance soo marka waxaan ka codsanayaa inaad eegtaan aad muhiim u tahay dhamaantooda meel walba joogtaan inaad concept good ka heshid lacag walba aad fiirisid halkii marayso meeshay sii marayso hadaa rabtid xatir Cardano kale waa ku dhufan kartaa any lacag markaas u baahatid dhamaantooda waad ku dhufsan kartaa soo marka waxaan ka codsanayaa insha Allah inaad 100% hadda maanta kale XRB oo kale fiiri ma sha Allah soo marka TRX-ka aan ula jeeda sidoo kale aad bay u qurux badan tahay pricing-ka kala xatir oo kala socon kartaa ayadoo desktop ahaan waa fiirin kartaa qofkii u baahan please waxaan ka codsanayaa inaad eegtaan qofkii su'aal qabo oo ila soo xiriiri karaa waqti xaadirkan in lacagahan waxay marayaan haddii aan dib ugu noqdo qofkii rabo inuu lacagaha ogaado si fudud haddaan dib ugu noqdo Bitcoin waxay maraysaa halkaasi 47 Ethereum-na waxa waa 337
Binance in wuxuu marayaa $527 waqti xadirkan soo marka waxaad rajaynayaan dhamaantiin inaa weekend wanaagsan leedihiin maanta waa May 15keedii kooda duhurnimo ayay tahay xilliga doorka ayaa la joogaa marka waxaan isdhahay intii la gaarsiin karo saddexdan website dadka la wadaag website badan ay jiro idinkana waa idin wadaagi doonaa saan hore u sheegay waxaan idinka codsanayaa dhamaantiin inaad Somali Innovation ku soo biirtaan aad YouTube-keena asxaabta kale la wadaagtaan muuqaalo joogteen aan soo gelin doonaa everyday waxyaabo badan waa ka hadli doonaa hadday noqoto Somali Innovation in YouTube-keeda aan soo geliyo sidoo kale Facebook group aa leenahay qofkii rabo nagala soo xiriiri karaa Instagram-keena Somali Innovation waa follow gareyn kartaan insha Allah qofkii su'aal qaban email ha inoo soo diro insha Allah Somali Innovation Club qofkii su'aal qaban emailkaas ha inoo soo diro ama Instagram-ka ha igala soo xiriir insha Allah anaa idin caawin doono dhamaantiin meel baa joogtaan assalaamu calaykum